argagixisada al-shabaab wax ka yar 24 saac ayay guud ahaan Soomaaliya ku qabsan doonaan haddii ciidanka ADMIS ay dalka ka baxaan. Hadalkan waxaa sheegay madaxweynaha dalka Djibouti. Haddaba suuragal ma tahay arrintan? Warbixintan ayaynu daawada ku eegi doonaa ee soo dhawaada. daawada fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir aragtidaada qaybta hoose commentiga inoogu reeb muuqaalka share garay si dad badan u gaara mahadsanid. Madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo wareysi siinay mid ka mid ah TV-yada ka howlgala ama laga leeyahay wadankan Turkiga. Waxa uu ka hadlay suuragalnimada in argagixisada al-shabaab ay guud ahaan Soomaaliya gacanta ku dhigaan. Waxa uu sheegay in haddii ciidamada ADMIS ay ka baxaan Soomaaliya ay dhici doonto wixii Afghanistan ka dhacay kadib markii ciidamada Mareykanka ay faarujeen dalkaasi kadib kooxda Taliban gacanta ay ku dhigeen guud ahaan wadanka Afghanistan. Waxa uu sheegay si taasi la mid ah haddii aan laga fiirsan in ciidamada ADMIS laga saaro Soomaaliya ay keeni doonto in maalin cad askariga ugu dambeeya ciidanka ADMIS markii uu ka baxo Soomaaliya in guud ahaan dalka ay la wareegi doonto argagixisada. Waxa uu garab istaag u muujiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan dalbaday in dib loo dhigo ilaa 3,000 oo ka mid ah ciidamada ADMIS oo la qorsheeyay inay isaga baxaan dalka dabayaaqadii bishii tagtay ilaa iyo bilowga bishan. waxaana madaxweyne Xasan Sheekh arinta uu ku sheegay in qorshihii howlgallada wax badan ay iska bedeleen maadaama dagaal culus lagu jiro ay muhiim tahay in ADMIS ay weli sii joogaan ciidamada la bixinayo ama ciidamada dalka laga saarayo. hase yeeshee golaha nabadda ee midowga Afrika iyo amnigaba waxa ay sheegeen in marnaba aanay dalabkaasi aqbali doonin oo madaxda Soomaalida iyagu ay horay u balan qaadeen in amniga dalkooda ay la wareegi karaan ciidamadooda isla markaana mas'uuliyadda ay dhabarka saarteen lana saarayo ciidamada ADMIS. sanadka 2024 ayaa si kama dambaysa la doonaya dhammaan askarta AMISOM inay isaga baxaan Soomaaliya waxaana bedeli doona meelihii ay joogeen ciidamada Soomaaliyeed. laakiin dowladda federaalka waxay leedahay ilaa hadda ciidanka iskuma toosna oo dagaalo adag ay ku jiraan suuragalna ma ahan in ay ku sii darsadaan shaqadii ay ADMIS haysay sida ilaalinta xarumaha muhiimka ah ee dowladda. laakiin markii ay arkeen baahidaasi weyn inay jirto waxa ay midowga Afrika sheegayaan in ciidankooda ay la bixi doonaan wixii doonaba Soomaaliya ku dhacay. madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu ku taliyay in marnaba aan lagu degdegin Soomaaliya in laga saaro ciidamada ADMIS isagoo sheegay inay muhiim tahay ciidanka tirada hadda la qorsheeyay ee baxaya inay joogaan sidoo kalena kuwa kale aan wili waqti loo qaban oo beesha caalamka ay ku taageerto in dhaqaalahooda la siiyo ciidamadaas. kuna darso Ismaaciil Cumar Geelle dalka waxa ka jooga ciidamo kuwaas oo dhanka gobolka Hiiraan ku sugan loona bixiyay hil walaal. inkastoo ay madaxweynayaal badan iyo mas'uuliyiin dhowra ay sheegeen inaysan xilligan sahlaneyn ciidamada ADMIS inay dalka ka baxaan haddana horey waxa u jira qorshe ay dowladda federaalka wado oo ah in guud ahaan dalka laga saaro ciidamada shisheeye isla markaana ay la wareegaan ammaanka ciidamada Soomaaliya. laakiin markii qorshahan la gaariyay waxaa loo maleynayay in howlgallada ka dhanka argagixisada ay si degdeg ah kusoo dhamaan doonaan isla markaana guulo waaweyn laga gaarayo. hase ahaatee howlgalka oo daba dheeraaday iyo wili gobollo badan oo dhiman waxa ay taasi keentay in madaxweyne Xasan Sheekh uu dalbado in go'aanadii hore ugu yaraan hakad la geliyo ilaa 3 bil kadibna la ogaan doono natiijada ka dambeysa. Soomaaliya waxa ka soconaya dagaal culus oo ka dhan ah al-shabaab waxaana ciidanka hadda ay howlgallo ballaaran ka wadaan deegaano dhowr oo ka mid ah gobollada Hirshabeelle ay ka kooban tahay iyo sidoo kale dhanka Galmudug waa Mudug iyo Galgaduud iyo sidoo kale dhanka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. waxaa dhiman gobollo badan oo sida Jubbooyinka iyo Gado Koonfur Galbeed oo 3 gobol ah Bay Bakool iyo Shabeellaha Hoose waxaana taasi ay qaadan doontaa waqti iyo sidoo kale in lagu bixiyo qarash xoog badan si dalka looga saaro argagixisada. laakiin sida muuqata midowga Afrika waxay doonayaan inay dunida tusaan waxa ay Soomaaliya ka hayeen oo markii uu yimid dalabka madaxweyne Xasan Sheekh oo ah in ciidamadan ay sii joogaan ayay bilaabeen iyaguna inay ku sii jeejeesaan oo yiraahdaan shalayto Soomaaliya idinka ayaa dhahayay amnigeena waan sugan karnaa ee maantana isxaliya. haddaba daawade maxay kula tahay aragtidaada ma is leedahay hadalka madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waa uu dhaboobi karaa oo haddii ciidamada ADMIS ay hadda dalka ka baxaan argagixisada waa suuragal meelo badan inay qabsadaan mise waxaad is leedahay ciidankeena qaranka waa ay la dagaalami karaan argagixisada oo dalka way ka saari karaan sidoo kalena boosaskii ADMIS ay baneeyaan ama ay baneyn doonaanna waa ay difaaci karaan oo ay ka difaaci karaan cadowga. fadlan waa muhiim aragtidaada qaybta hoose commentiga noogu reeb muuqaalka share garay si dad badan u gaara mahadsanid.